taariikhdu markii 24 bishii Koobtanaad 1931 galabnimo Arbaca waxa dhacday in isku magacaabay magaca Dan Cooper uu iibsaday tigidh diyaaradu qiimihiisu waa $20 oo one way ah kaasoo ku raacay diyaaradda lagu magacaabo North West Ireland flight-ka nambarkiisu yahay 305 asagoona ninkan isla markaas ka baxay magaalada Portland ee gobolka Oregon sidoo kalena uu ku wajahnaa Seattle gobolka Washington haddaba ninkan ayaa lagu qeexay inuu ahaa da'da 40-ka sidoo kalena uu xidhnaa suud kaasoo ka kor xidhnaa jacket madow ayadoona sidoo kale uu ninkan watay boorso madow oo briefcase iyo waliba boorso waraaqad ka samaysan taasuna cabirkeedu waa 14 inch asagoona intaas ka dhintaysan diyaaraddu hawada gelin si degan u fadhiisa kursigiisa lambarka 14C oo ah kursiga ugu dambeeyay diyaaradda halkaasuna ahaa mid dalbada cabitaan qamri iyo waliba mid sooda ah halkiina uu shatay sigaar ilaa waqtigu 7-meeyay intaas kadib markii ay diyaaradda hawada gashay saacaduna ay ku beegnay 3 galabnimo Cooper ayaa ahaa mid shaqaalihii diyaaraddu u dhiibay warqad noot ah laakiin markii koobaad gabadhii shaqaalaha ayaa ahayd mid iska indhatirtay warqadii ayadoona aan wax weyn ka soo qaadan sidoo kale ingiriisi jeebkeedii ilaa ugu dambeyntii uu Cooper u sheegay gabadhii waraaqda ah marwo waxa wanaagsan inaad akhriso warqadaas sababtoo ah waxaan wataa bam halkaasuna Cooper bilaabay in gabadhii uu dhinaciisa soo fariisiyo asagoona tusay bamkii ku jiray boorsadiisan madow intaas kadib Cooper ayaa gabadhii u sheegay inay qorto waxaan uu sheegayo si ay isla markaas ugu gudbiso kabtankii diyaaradda asagoona dalabkiisan ku bilaabay sidan waxaan rabaa $200,000 oo kaash ah saacadu markay ay tahay 5 galabnimo lacagtaasoo ku jirta kiish waxaan sidoo kale rabaa 4 baarashuud oo lababa noociyeen iyo mid kale oo ah markaan soo caga dhigana Seattle inaan rabo gaari shidaal sidoo kalena diyaar ah asagoona intaas si raaciyay hanjabaada ah wax kaftana meeshan ma yaalaan hadii kale shaqadeeda sidaan u qabsan lahaa waan aqaanaa هذا ومدن وشيكة والدة Dan Cooper دعادة أفضل وين تاريخ sidoo kalena aan la xalin ilaa waqti xaadirkan la joogo dacdaduna ku jirta mid kamid ah kiisaskii ugu adkaa taariikhda soo maray FBI-da sidoo kalena ku qaatay raadintiisa in ka badan 45 sano hada waa Dan Cooper sidoo kale halkii ayuu ku dambeeyay waxa soo dhan waxa isku leegi doonaa muuqaalkeenan maanta ee ugu soo dhaw qisadan oo dhameystiran waxyaataba ilaa waqti xaadirkan rakaabkii diyaaradda ayaa kuwan ku baraarugsaneen in diyaaradoodan ay afduuban tahay sidoo kalena ay u afduuban tahay ninkii lagu magacaabay Dan Cooper oo shaqaalihii diyaaradda iyo Cooper waxay hayeen kuwa si degan wax u wada xalinayay ayagoona aan dareensiinayn rakaabkii diyaaradda in wax dhibaato ay jirto haddaba intaas kadib gabadhii shaqaalaha ayaa bilowday inay wargeliso shaqaalihii kale ee diyaaradda sidoo kalena ku jiray gudaha halka gabadh kale oo lagu magacaabay Tina Maklow ayadna ay caawiye rakaab ay soo ag fadhiistay Cooper dhinaciisa halkaasoo ay bilowday inay kala jawaabto Cooper iyo waliba shaqaalihii kale ee gudaha ku jiray intaas kadib ku dhawaad hal saac iyo bar flight-kii 305 ayaa ahaa mid dulhay ahaa hawada magaalada uu duulimaad ku socday ee ahayd Seattle inta isla markaas laga fulinayay sidoo kalena loo diyaarinayay dalabaadkii Cooper ee ahaa lacagtii iyo waliba baarashuudka ilaa ugu dambeyntii lacagtii laga soo qaaday bangiga dhexe ee Seattle halka sidoo kalena baarashuudyadii laga dalbay xarunta tababarka duulimaadyada ee Seattle ugu dambeyntiina saacadu markii ay 5:45 galabnimo duulimaadkii 305 ayaa ahaa mid nabad ku soo cagadhigtay airportkii Seattle halkaasoo lacagtii iyo baarashuudkiiba gacanta laga saaray gabadhii caawiyaha ee lagu magacaabay Tina si ay isla markaas ugu gudbiso Cooper halkaasoo Cooper asna mid soo fasaxay dhammaan rakaabkii diyaaraddu ay ku jireen laba kamid ah shaqaalihii diyaaradda ilaa al'aankana rakaabka qaar kamid ah ayaaba kuwan ku baraarugsaneen afduubashada flight-koodan oo waxay islahaayeen uu kaliya cilad guud ay jirtay sababta isla markaas diyaaradooda waqtiga loogu talagalay way u dugi weyday haddaba intaas kadib Cooper markii uu gacanta ku dhigay waxa uu rabay waxa uu isla markiiba Tina ku amray in kabtankii diyaaradda ay wargelisay inuu duuli doonaan Mexico City asagoona sidoo kale amray in diyaaradda aan cagaheeda loo laabin sidoo kalena lagu duulayo masaafo ka hooseysa 10,000 feet leedhadhkana la diminayo iyo mid ugu dambayso ah in jaraanjarta hoose ee diyaaradda taasoo ka furmaysay gudaha la furo sidoo kalena ay sidaas ahaato haddaba codsiyadan uu Cooper soo jeediyay qayb kamid ah ayaan ahayn kuwa macquul ah oo masaafada intaas leeg haddii ay diyaaraddu ku duulayso waxay u baahnayeen in mar kale la shidaaleeyo diyaaradda halkaasoo Cooper iyo shaqaale ay isku waafaqeen inay ka shidaaleeyaan diyaaradda marka la gaadho meesha lagu magacaabo Reno oo u dhaxaysa Mexico City iyo Seattle dhanka kale arrinkan in diyaaradda jaraanjarteeda la sii daayo ayaa ahaa dhibaato kale oo shaqaaluhu waxay Cooper u sheegeen inay adag tahay in sidaas lagu dhaafo inta ay diyaaraddu hawada ku jirto asagoona ku waafaqay arrinkii shaqaalaha diyaaradda laakiin uu sheegay in ay isla markaas u sheegtay qaabkii loo dejin lahaa jaraanjartan marka ay diyaaraddu xasasho isla markaasna ay hawada si fiican u gasho sida yaataba markii ay diyaaraddii hawada ku laabatay sidoo kalena ay saacadu ku beegan tahay 7:40 fiidnimo Cooper ayaa ahaa mid u sheegay gabadhii lagu magacaabay Tina inay dhinaciisa ka kacday isla markaasna ay ku biirto shaqaalihii kale ee diyaaradda si uu isla markaas waxoogaa nasiya u qaato halkaasoo inuu tagtay shaqaalihii kale ayadoona hoosta ka xidhatay albaabkii u dhaxeeyay ee kala saarayay darwaleynta iyo waliba meesha ay rakaabku fadhiisanayeen ugu dambeyntiina 3 saac kadib flight-kii 305 ayaa mid sanadada ku soo caga dhigtay Reno oo ay goobta ay ku ballansanaayeen inay shidaal kaga shuban doonaan diyaaradoodan
laakiin isla markii ay albaabkii fureen sidoo kalena ay fiiriyeen qaybtii rakaabka Cooper ayaaba ahaa mid diyaaradii aan saarnayn halka dhanka kalena ay furnay jaraanjartii hoose ee diyaaradda taasoo sida muuqata la furayntii ay diyaaraddu hawada ku jirtay oo markii ay diyaaraddu soo caga dhigtay jaraanjartii ayaaba ay mid waxyeelowday maadaama loogu talagalay in jaraanjartan ay xidhnaato markay diyaaraddu caga dhiganayso haddaba sidee ayay wax u dhaceen 3 saacadood ay ku jirtay diyaaradda hawada u dhaxaysay Seattle iyo Reno haddaba midan ayaa lahayd oo keliya hal qeexitaan taasuna ahayd in intii u dhaxaysay Seattle iyo Reno uu Cooper ahaa mid xidhay baarashuudkiisii halkaasuna u dhaqaaqay dhankii iyo jaraanjartii sidaasna uu uga booday diyaaraddii haddaba waa meesha ay sheekada dhabta ay ka bilaabmatay kadib markii la ogaaday in Cooper uusan ku sugnayn diyaaraddii waxaa dhacday in FBI ay isla markiiba howlgalaan halkaasoo in howlgalkoodii ay ka bilaabeen diyaaraddii gudaheeda haddaba waxay diyaaraddu gudaheeda ugu tageen ayaa ahayd taay madow ah 8 haasho sigaara iyo 2 ka mid ah 4 baarashuud oo uu ka tegay intaas kadib qeexitaan dheer iyo waraysi la wareystay rakaabkii diyaaradda kadib Cooper ay ku qeexeen inuu ekaa sidan tusaale ahaan haddii aad isweydiinayso ukiyaalkan meesha uu ka yimidna waxaa la sheegay in Cooper uu ukiyaalkan xirtay intii uu isku diyaarinayay booditaankiisa oo tiina ayaa ahayd mid ku aragtay inta uusan ka boodin diyaaraddii haddaba inta aysan FBI wax tallaaba qaadin ka hor waxaa qasab ahayd in ogaadaan waqtima ayuu Cooper ka booday diyaaradda si isla markaas ay ugu fududaato goobaha ay ka raadin karaan ninkan laakiin nasiixu middan ayaa ahayd waqti lumis oo dhammaan 4 shaqaale ee diyaaradda la saarnaa Cooper ma aysan ahayn kuwa arkay Cooper waqtigii uu ka booday diyaaradda iska dhaaf xitaa shaqaalihii diyaaraddaasi waxaan sidoo kale arkayn ninkan booditaankiisa 2 diyaaradood oo ka dambeeyay diyaaraddii uu saarnaa Cooper kuwaasoona dabagal ku hayay sidoo kalena daba socday raadkii diyaaradda 305 haddaba sababta booditaankiisa loo arki waayeyna wax kale ma ahayn ee waa in waqtigu ahaa madow gudcur ah sidoo kalena ay adag tahay in wax la arko iyo in Cooper uu horaantiiba ahaa mid dalbaday in la damiyo dhammaan nalalka diyaaradda gudaheeda si aan isla markaas bannaanka kor looga arkin intaas kadib darawalladii ayaa mar kale sheegay arrin kale oo lama filaan ah ayagoona FBI u sheegeen saacadu markii ay ku beegneed cabaar 8 daqiiqo ay Cooper weydiiyeen inuu wax u baahan yahay in kale asaguna ku jawaabay maya laakiin intaas kadib ku dhawaad 10 daqiiqo markay ku soo wareegtay wadahadalkaas dhexmaray shaqaalihii iyo Cooper shaqaalihii ayaa ahaa kuwa sheegay inay maqleen waxay ku tilmaameen cod gariira kaasoona ka soo baxay diyaaradda gudaheeda ayagoona ay ku qiyaaseen in codkaas uu sababay markii uu Cooper ka booday diyaaraddii oo gariirkaas waxaa sababay hawadii diyaaraddu soo gelaysay markii la furay jaraanjartii haddaba haddii waqtiga la isla helay haddana waxaa timaaday su-aashii kale ee ugu muhiimsanayd taasoona ahayd xaggee ayuu ku boodi karaa ilaan Seattle iyo Reno waxaa u dhexeeya dhul aad u weyn sidoo kalena ay adkaanaysa in inta u dhaxaysa wax laga raadiyo maadaama dhulkuna uu yahay dhul aad buurow ah sidoo kalena aad qiimo leh haddaba sida muuqatay Cooper ayaa ahaa mid aan la dhihi karin ee qorshaysnayd goobta ama meesha uu ku boodayo oo Cooper ayaa ahaa mid u degdegsanaa oo keliya in diyaaraddu ay hawada gasho taasoona uu caddeeyey kabtankii diyaaradda oo Cooper ayaa ahaa mid u sheegay intii diyaaradda la shidaalaynayay inay dhaqsadaan si ay isla markaas hawada ugu laabtaan midanuuna laga arkay sida uu Cooper u degdegsanaa isla markaasna uu rabay in si dhaqso ay hawada ugu laabato diyaaraddu sida yaataba ciidamadii ayaa ugu dambeyntii go'aansaday inay qiyaasaan goobtii uu Cooper uga booday diyaaraddii halkaasuna ay isku waafaqeen in goobta ugu habboon ay tahay goobtan taasuna u jirta 40 kilomitir galbeedka Portland halkaasina FBI bilaabeen in isku fidiyaan sidoo kalena ay guda galaan raadintii ayagoona adeegsanaya helikabtar iyo qalab walba wax lagu raadiyo sida u dhannaa haddaba dhibaatada ayaa ahayd in xitaa haddii ay goobtan ay qiyaaseen inuu Cooper ku booday ay tahay goob saxa sidoo kalena la hubo aysan marnaba sahlanin in si fudud lagu helo Cooper oo meeshan ayaa ahayd dhul buuraa taasoo qariyeen qiimo aad u waaweyn ayadoona dhan kale ay isxidheen ceeryaamo ay adag tahay in wax laga arko oo dhab ahaantii raadintan ayaa la mid ahaydun adigoo cirbad kaalunti raadinaya halka dhan kalena intaasii dheerayd in waqtigaas raadinta ay jirtay cimilo aad u xun taasoona socotay maalmo dhowra intaas ay raadintu socotay midanuuna kalifteen rafaadkaas dheer iyo silacaas kadib aysan FBI-dii helin haba yaraatay wax raad oo ku saabsan Cooper iyo weliba alaabtiisii uu horey u qaatay haddaba markii laga qoostay raadkii Cooper waxaa mar kale bilowday in dabagal lagu sameeyay lacagtii uu Cooper dhacay taasoona ahayd 200,000 haddaba sidaan soo sheegnay lacagtan ayaa ahayd mid laga soo qaaday bangigii dhexe ee Seattle sida yaataba haddaba bangigan ayaa ahaa mid horey u hayay lacag gaadhaysa $250,000 taasoona loo sameeyey qaab qaas oo ka duwan lacagaha kale lacagtaasoona isla markaas loogu talagalay dhacdooyinka noocan oo kale ah oo dhammaan lacagaha uu Cooper hayay $20 taasoona isku darkoodu ahaa $10,000 waxay ahaayeen lacagaan qaaska loo sameeyay ee ku diyaarsanaa bangigan arrinkanoona isla markiiba lagu faafiyey wargeysyada ayadoona ujeeddadu ahayd in lagu adkeeyo Cooper isticmaalidda lacagtiisan halka dhanka kalena ay diyaaraddii North West Ireland ay bilowday inay ayadna faafiso inay abaalmarin doonaan qofkii soo hela caddaynta ku saabsan lacagtaas laakiin dadaalkaasoo dhan kadib qofna ma awoodin helitaankii lacagtaas iyo weliba raadkii Cooper waxay wax walba sidaas ahaadaan ugu dambeyntii ku dhawaad 10 sano kadib waxaa dhacday in kiiska ay wax ka soo cusboonaadaan
ayadoona taariikhdu markaad bishii 1980kii uu wiil yar oo lagu magacaabay Brian uu bilaabay inuu meel xeeb ka dhiso kaam yar. Haddaba intii uu qoday carrada wiilkan ayaa goobtii ka helay xidhmooyin lacagtaasoo gaaraysa $5,880. ayagoona waalidiintii wiilkan ay isla markii u bilaabeen in lacagta ay ku wareejiyaan FBI-da kadib markii ay xaqiiqsadeen in lacagtan ay tahay tii afduubka. halkaasuna xaqiijin lagu sameeyay lacagtii, sidaasna lagu ogaaday in lacagtan ay tahay isla tii Cooper loo gacan geliyay. waxay yaataba arrinkii lama filaanka FBI-da ku noqday ayaa ahayd markii ay ogaadeen goobtii lacagtan laga helay, oo lacagtan ayaa isla markaas ahayd mid laga helay goob aad uga fogeyd marka loo eego goobtii ay qiyaasanayeen in Cooper uu ku booday. sidoo kalena ay baaritaan ku hayeen muddadaas oo dhan midaanoona dhab ahaantii cuntami weeday, ayadoona xitaa haddii la dhihi lahaa webiga goobtaas ka dhawaa ayaa soo qaaday lacagtan sidoo kalena goobtan ku soo tuuray aysan suurtoobeynin, iyo sababta ay macquul tahay in 3 xidhmo oo kala gaara uu webigu hal meel isugu keenayo. dhanka kale midda kale ee su'aalo badan dhalisay ayaa ahayd xargaha ku xirnaa lacagtan, oo xargahan ayaa la sheegay inaysan marnaba macquul ahayn inay sidooda aadaan muddo gaadhaysa 1 sano haddii ay taabtaan biyo ama iska yaalaan meel bannaana, oo xargahan ayaa ah kuwa aan awooddaas oo dhan lahayn. ayadoona markii lacagtan la helaya ayba xargaan ahayn kuwa lacagtii weli isku hayay oo aysan haba yaraatay wax soo gaadhin walow intaasoo sana ay ka soo wareegatay. midaanoona sida ugu macquulsan ahayd in lacagtan la duugay sannado badan kadib dhici. haddaba yaa duugay lacagtan waa su'aasha kale isweydiinta mudnayd. ma Cooper ayaa badbaadi u duugay lacagtan mise qof kale oo tirtiraya raadkii Cooper? ayadoona su'aalo ay marba mar kasii dambaysa ay sii badanayeen, halkaasoona mar kale dib loo soo cusboonaysiiyey raadintii Cooper iyo weliba raadkiisii, laakiin marka wax walba sidoo hore ay ka duwanaan doonaan. haddaba saaxiibayaal intaanaan u gudagelin qaybta xigta ee muuqaalkeenan xiisaha badan, waxaan rabaa inaan xasuusiin haddii uusan channelku subscribe ku hayn inaad hadda subscribe saarato, waa waxa ugu yaraa channelku taageeri karto. mahadsanid. dhan kale waxaan rabaa inaan idin ogeysiin muuqaalada noocan oo kale ee xiisaha badan, sidoo kalena aan laga aamusi karnaa channel ku arki doontaan haddii uu alleedmo, inagoona sidoo kale wadan doona muuqaaladeenii kale ee business documentary-ga ah. fadlan idinkuna aragtidiina hoos igula wadaaga ilaan channelku waa channelkiiniye. dhanka kale ha ilaawinayn dhankaas Instagram-kan ka wada soconno wixii update aan u gudagalno muuqaalkeenan. haddaba horraantiiba marka ay dhacday dhacdadan afduub ee duulimaadkii 305, dadyo badan waxay isla markiiba aamineen suurtagalnimada dhimashada Cooper, ayadoona ay ku adkaysteen inuusan Cooper marnaba ka boodin booditaankiisii uu ka booday diyaaraddii. laakiin haddana midda kale ayaa ahayd waaye haddii ay sidaas dhacday maxaa loo arki waayay ugu yaraan meydkiisa ama wax raada oo caddaynaya dhimashadiisa. inkastoo dhan kale marka si loo fiiriyo warkaas waa mid aad suurtagal u ah, sababtoo ah markii uu Cooper ka boodayay diyaaraddii habeenkaas, diyaaradda ayaa ahayd mid ku socotay masaafo gaadhaysa 315 kilomitir saacadiiba, ayadoona dabaysha socotay ay ahayd mid aan innaba la qiyaasi karin xooggeeda. xisaabtan ugu darsay cimiladu meeshan uu ku boodayay inay ahayd qabow aad u daran sidaan hore soo sheegnay, sidaas ay tahay Cooper ma uusan marnaba u diyaarsanayn cimilada noocaasa, oo ma uusan wadan tusaale ahaan jaakeed ama dhar adag oo ka difaaca waxaasoo dhan. ayadoona midda kale jirtay ahayd in Cooper uu boodo isagoon ogeyn meesha uu ku boodayo, oo haddii aan dhihi lahayn meesha uu ku booday wuu arkayay macquul maaha, sababtoo ah waxaa dhulkoo dhan qarinaya daruuro iyo weliba ceeryaamo, kuna darso habeenku aad ayuu u madoobaa. ayadoona midda intaasoo dhan kasii wada darnayd ay ahayd in Cooper baarashuudka u doortay inuu kaga boodo diyaaraddii uusan ahayn kii saxda ahaa, kaasoona la sheegay inuusan sinaba ugu badbaadi doonin. haddaba markii uu Cooper dalbanayay baarashuudka waxaa muuqatay inuu ahaa nin kala yaqaanin noocyada baarashuudka, oo 4 baarashuud ee uu dalbada ayaa kala ahaa 2 Premier ah iyo 2 Reserve ah, halka dhanka kalena uu degay maskax ah in FBI-da uu ka dhaadhiciyay inuu hore u sii wadanayo afduubayaal si aysan isla markaas ugu qiyaamaynin baarashuudyadan ay soo dirayaan, oo waxa uu ekaa mid ka baaraan degay waxaasoo dhan. inkastay markii dambe FBI-du sheegeen inay ogaayeen in ninkan uusan marnaba khatar gelinaynin nafta dadyowga kale. haddaba 4 baarashuud ee FBI-du ay soo dhiibeen ayaa ahaayeen 2 nooc oo ah kuwa caadiga loo isticmaalo, sidoo kalena ah Premier Shooters, halka 2 kalena ay ahaayeen kuwa loo yaqaano Dummy Shooters-ka oo ah nooc loogu talagalay tababarka, sidoo kalena ka qadiimisan noocan kale. ayadoona arrinka la yaabka lahaa uu ahaa in Cooper uu ahaa mid qaatay mid ka mid ah Dummy Shoot-kii, halka midka kalena uu doortay midkii weynaa 2 baarashuud ee Premier-ka ah, oo labada dhinacba Cooper ayaa ahaa mid doortay doorashadii ugu xumayd. ayadoona marka dhanka la fiiriyo ay aragti kale soo baxday, aragtidaasoo ah in Cooper uu Dummy Shoot-ka u isticmaalayay si uu isla markaas lacagtiisa ugu ilaaliyo sidoo kalena ugu duuduubo, halka baarashuudka kalena uu asagu isticmaalayay. dhanka kale sababta uu 2 baarashuud ee Premier-ka uga doortay midka weyn ayaa ahayd maadaama uu midkaas aqoon u lahaa, oo kan uu ka tegay ayaa ahaa noocyadii dambe, halka midka uu qaatayna waa noocyadii hore kaasoona xitaa ay isticmaali jireen militarigu. ayadoona middan ay sidoo kale dhalisay su'aal kale oo ah in la isweydiiyo Cooper ma waxa uu hore u soo ahaan jiray military, midaanoona caddaynaysa in intii afduubkii lagu guda jiray weliba markaa diyaaradu ay mid dul wareegtay Seattle intii Cooper loo diyaarinayay dalabaadkiisa, uu Cooper ahaa mid u sheegay shaqaalihii diyaaradda xarun military oo lagu magacaabay McCord Air Force, taasoona u jirtay airportkii Seattle 20 daqiiqo. midaanoona runahay sidoo kalena sii xaqiijisayba aragtida in ninkan uu hore u soo lahaa khibrad militarinimo.
iska badaa marka laga yimaado in ninkan uu hore u soo ahaan jiray military waxaa sidoo kale ninkan looga sheekeeyay inuu sidoo kale soo ahaa ciidamada CIA ee Mareykanka oo ninkan diyaaradda uu doortay inuu afduubta ayaaba ahayd nooca diyaaradda ay ciidamada CIA ay hore isticmaali jireen diyaaraddan oo dagaalkii Vietnam ahayd mid ay ku halgali jireen nooceedan si ay ciidamadooda isla markaas ugu daadiyaan goobtaas maadaama ay diyaaraddan leedahay jaranjar hoose taasoo la furi karo inta ay diyaaraddu hawada ku jirto midanoona sida cad ku cadeynaysa in ninkan uu isla ujeedadaas u doortay noocan diyaarad maadaama uu hore u ogaan ka baxsashadooda ay sahlan tahay sidoo kalena aysan la mid ahayn diyaaradaha kale sida yaataba inkastoo ninkan dhinac walba ka diyaarsanaa sidoo kalena uu wax walba soo qorsheeyay asagoona wax caddayn oo aan la taaban karin ka tegin haddana midda isweydiinta mudan ayaa ahayd muxuu ninkan u qorshaysan waayey baxsadkiisa ilaan kaas ayaa ahaa midka ugu muhiimsanaa waxaasoo dhane muxuu oga labalabayay taargetkiisii ahaa Mexico City muxuu soo dalban waayay qalabka loo saamaxa baxsashadiisa sida kabo buuda koofiyad madaxiisa difaacda ama dharka loogu talagalay booditaanka mise ninkan ayaa ahaa oo kaliya mid isku dhiibay nasiibka oo waxaasoo dhan hore ma uusan soo qorshaysanin waxyaataba dhan kale FBI-da ayaan ahayn mid inta uu keeskan socday heshay wax xog oo sheegay qof la waayay kaasoo nala suurada ninkan oo kale oo midan ayaa dhan kale xoojisay ninkan noolaanshihiisa iyo in ninkan uuba yahay mid sidaga noloshiisa hore isaga sii watay kadib dhacdadaas ayadoona xaqiiqdii uu ninkan yahay mid badbaaday dhanka kale waxa ayadna hadalla badan dhalisay ninkan dhalashadiisa iyo meesha uu ka soo jeeday weliba sida muuqatay uu ninkan ahaa Amerikaan laakiin haddana marka dib loogu fiirsaday erayada uu adeegsanayay Cooper ayaa ahaa kuwa ka duwanaa kuwa qof Amerikaan adeegsado midaanoona keentay ninkan dhalashadiisa looga shakiyo inuu yahay Canadian sidoo kale haddii aad isweydiinaysa maxay kala yihiin magacyada ninkan ee kala ah DB Cooper ama Dan Cooper xageesa ka kala yimaadeen labadan magac haddaba horaantii dhacdadan afduub ee falaadka 305 kadib waxaa dhacday in la soo xidhay nin looga shakiyo dhacdadan kaasuna magaciisu waa DB Cooper intaas kadib waxaa dhacday in wargeysyada isku qaldaan magaca ninka afduubaha dhabta ee Dan Cooper iyo ninkan looga shakiyo dhacdadaas DB Cooper halkaasoona la isku qalday labadan magac sidaasna uu ku baxay magacan ah DB Cooper kaasoona uu ninkan ku caan baxay inkastoo dhan kale aan la hubin magacan inuu yahay kiisa saxda ah yacni Dan Cooper oo magacan ayaa la aaminsan yahay inuu ka keenay buug taxanaha oo Faransiis ah kaasuna magaciisu waa Dan Cooper buugan oo ka hadlayay baylot Canadian ah waana mid ka mid ah sababaha Dan Cooper looga shakiyay inuu yahay Canadian haddaba ugu dambeyntii nusqarnigaas la weysanaa Cooper waxaa dhacday in laga shakiyo kumanaan shakhsi kuwaasoona la su'aalay sidoo kalena dabagal lagu sameeyay intii uu kiiskan socday haddaba dhammaantood ma dhihi karna halkan ayaan kusoo koobaynaa balse aan isla eegno kuwa la dhihi karo way noqon karaan ama way ishabahaan DB Cooper haddaba ninka koowaad ayaa ahaa ninkan oo lagu magacaabay Kenneth B. Christensen ninkanoona markiisii ugu horreysay laga shakiyay taariikhda markaa 2003 kadib markii uu walaalkii ogaaday inay wax ka dhexeeyaan ninkan iyo Cooper sababaha looga shakiyayna ay ahayd haddaba ninkan ayaa military ka qayb qaatay dagaalkii labaad ee dunida xasuusnana in Cooper asna looga shaksanaa inuu yahay military sidoo kale ninkan ayaa u shaqaynayay diyaaraddii North West Ireland ka hor dhicii iyo weliba kadib waa isla diyaaraddii uu dhaca u geysay Cooper ayadoona ninkan uu ahaa 45 jir waqtigii dhaca 1971 iyo midda kale oo ah in ninkan waa gacan bidix taasoo Cooper looga shakiyay inuu ahaa sabab la xiriira qoraalkiisa sidoo kale ninkan inta uusan dhimanin ka hor waxa uu walaalkii u sheegay inuu rabo inuu wax u sheego laakiin si uusan awoodin halkaasoona uu sidoo ku dhintay asagoo haba yaraatay wax u sheegin walaalkii bal qiyaas walaalka ama qof ku dhow ku yiraahday inaan wax ku sheegaan rabaa haddana si kama kadib isbedela sidoo kalena ku yiraahdo ma awoodi ani ahaanteeda nolosheeda inta ka dhiman waaban u waalan lahaa sidii aan ogaan lahaa waxaas dabcanna waa midda ninkan ku kalifteen walaalkii uu soo dacweeyay kadib dhimashadiisii asagoona isla markaas la asaga ayuuba ahaa Cooperkii intaasoo dhan la raadinayay waxa uu ka qarnayayna intaas ayay ahayd sida yaataba midda dhanka kale la ogaaday kadib dhimashadiisii ninkan ayaa ahayd in bangigiisa ay ku jirtay lacag gaadhaysa $200,000 waxay yaataba laakiin cadaymahaasoo dhan kadib ninkan ayaan isla markaas noqonin Cooper oo ninkan ayaa la sheegay inuu kala fiyaraa sidoo kalena uu ka gaabnaa Cooper halka dhanka kalena uu ka tima yaraa Cooper lacagtana waxaa la sheegay inuu ka helay dhulkiisa uu horey u iibiyey dhanka kale haddaan nimaadno nin kale asna looga shakiyay Cooper ayaa ahaa ninkanoona lagu magacaabayo Duane Weber kaasoo asna laga shakiyay taariikhda markaad 1995 kadib dhimashadiisii wax yar ka hor haddaba ninkan ayaa inta uusan dhimanin ka hor xaaskiisa sir u sheegay asagoona ku yidhi waxaan rabaa inaan sir ku sheego sirtaasoona ah inaan ahay Dan Cooper sida yaataba qirashadaas kadib baaritaan lagu sameeyey ninkan ayaa la yaab ku riday dadyo badan haddaba ninkan ayaa lahaa khibrad military ninkan ayaa sidoo kale qabay dhaawac jilibka ah kaasoona la sheegay inuu ka soo gaadhay booditaan ninkan ayaa sidoo kale lahaa boorso bangi dhanka kale ninkan ayaa ahaa mid habeenkii ku qarwa inuu fingerprint ama faro uga yimaada meel ayadoona midda kale uu ninkan ahaa mid booqday sanadun ka hor meeshii lacagta laga helayay ee lagu magacaabayay Tina Bar meeshaasoona sidaan soo sheegnay lacag lagu duugay xisaabtana ku darsan ninkan ayaa u ekaa Cooper sidoo kalena waqtigaas jiray daada 47 daadii looga shakisanaa Cooper inuu jiray laakiin kadib baaritaan lagu sameeyay ninkan ayaa la sheegay inaysan islahayn farihiisa iyo farihii laga helay diyaaraddii 305 walow dhammaantii aan si fiican loo ogeyn farahaas ay ahaayeen kuwii Cooper kuna darso waqtigaasoo dhan ayaa ka soo wareegatay halka dhanka kalena DNA-ga aysan ismaaj garaynin midanoona sidoo kale aan la ogeyn DNA-gaas laga helay diyaaraddaas inuu ahaa kii Cooper iyo in kale oo ay dhacdaba in qof kale uu leeyahay
هذا ومدى أن مرنا بلا آمين كرنا إياها إن هذه الحصتنا أي في أيدك عن تكاين جانس كوين أي كوير كرندي أنا كوبر جانس كاسونا استدي هاشي وكتجي كوبر لكن تبات ضيع هذين عدين تسيدا سوين أي باهد مدلون تسدو كلنا ميل وشيجن مدانون الشكي أدوين دالسي waxyaa tablabadan iyo sidoo kale qaar badan oo ayaga lamid ah sidoo kalena aad looga shakiyay anshaha Cooper ayaa la dhigi karaa in dadyo badan ay ku wareereen ayagoona dhammaan raggan aysan isku ekeen balse dhanka kale ay dhammaantood u yihiin sidoo kalena ay noqon karaan DB Cooper ugu dambeyntii taariikhda markaa 2016 FBI-da Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay ku kuldareyseen helitaankii Cooper halkaasoo ay ku xidheen kiiskiisii ilaa maanta la joogana lama oga Cooper ma ka badbaaday dhacaas diyaarad mise ma uusan ka badbaadin haddaba dhankaaga adiga maxay kula tahay ugu dambeyntii saaxiibayaal waxaan rajaynayaa inaad ka wada hesheen mystery-gan lama ilaawaanka ee ku saabsan DB Cooper sidoo kale haddii aad jeclaysteen dhacdooyinka noocan oo kale ah waxaan rajaynayaa inaan waqti u samayno sidoo kalena channelka boos ka siino inaguna aan ka tegin muuqaaladeennii hore ee business documentary-ga haddaba maxay kula tahay adiga aragtidaada hoos nagula wadaag kale haddii aad muuqaalkan dhamaystay fadlan ha ilaawin inaad muuqaalkan like saarato sidoo kalena aad asxaabtaada la wadaagto kana war doonto muuqaalada xiisaha badan ee aan kusoo gudbino channelka adigoo ku dhufanay thumbnailada shaashada kaaga muuqanaya halkaas ayaan u balana